ciidamadani oo loo dhameystiray agabkooda qaybta ka qaadanaya inay guulo ka keenaan dagaalka isla markaana qaatay tababar dheeraad ah ayaa ku biiraya ciidamada ku jira howlgallada nabadiidka looga xoreynayo deegaanada yaryar ee weli kaga sugan yihiin qaar ka mid ah gobolada dalka si shacabka ku nool halkaas loo gaarsiiyo nabadda iyo adeegyada dowladda. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa xaalada tababarka General Gordon ku sagootiyay ciidamadan loo diyaariyay inay qaybta ka qaataan howlgallada cadowga lagu baacsanayo isla markaana dalka looga xoreynayo isagoo kula dardaarmay in looga baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay ka xoreeyaan cadowga dhibaateynaya kana hortaagan horumarka iyo nolosha. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa ciidamada u sheegay in shacabka Soomaaliyeed ugu faraxsan yihiin hawsha qaran ee dhiigooda ugu hurayaan cadowguna ay ka naxayaan maadaama ciidanku u dhaqaaqayaan ciribtirka argagixisada. Waa habeen farxad u ah ummadda Soomaaliyeed, waa habeen naxdin u ah cadowga Soomaaliyeed sababtoo ah waxaad diyaar u tihiin inaad jebisaan oo ka soo guuleysataan. ogaada waxaad difaacaysaan ma ahan qof ama qabiil, waxaad difaacaysaan waa qarannimada Soomaaliyeed. ogaada waxaad tihiin iftiinkii ummadda Soomaaliyeed. ogaada rajada dadka Soomaaliyeed oo dhan inay idinku xiran tahay. ogaada sida aad u dhaqantaan inay tahay astaanta dowladnimada. ogaada sida hamigiina iyo hadafkiinu yahay inay tahay sida mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ay u ekaanayso. ciidamada ayaa ah matalayaasha iyo rajada ummadda Soomaaliyeed taasoo ka dhigan in mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed uu ekaanayo hadba sida ay u dhaqmaan ciidanku. Ra'iisul Wasaaraha ayaana ku buuriyay ciidanka inay isku duubnaadaan isla markaana yeeshaan hal aragti oo ah in cadowga ay la dagaalamaan si hooyada Soomaaliyeed ee ay halkaas ku dhibaateynayaan ay u hesho nabad iyo dowladnimo. ciidanku waa astaanta qaranka Soomaaliyeed. ciidanku waa sharafta dowladnimada. ciidanku waa ilaaladii xuduudaha cir dhul iyo bad ee dadka iyo dalka Soomaaliyeed. ciidanku waa rajada kaliya ay ummadda Soomaaliyeed leedahay. dad iyo dalaan ciidan lahayn macnaheedu waxa uu noqonayaa dalaan dhul lahayn. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa u ballan qaaday ciidamada in madaxda dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay inay u dhameystiraan agabkooda iyo dhammaan xawqaadka ay leeyihiin si argagixisada ay u jabiyaan isla markaana ay uga ciribtiraan dhulka Soomaaliyeed. isagoo saraakiisha iyo taliyaasha ciidanka kula dardaarmay inay ku dadaalaan ilaalinta xuquuqda ciidamada si ay tusaale wanaagsan ugu noqdaan in ciidamadu ay leeyihiin hoggaan wanaagsan. ciidanku kama soo haro hoggaan iyo maamul, kama soo haro xuquuqda dhalinyaradaas dhiigooda shubaysa si loo ilaaliyo, kama soo haro in loo cadaalad faro, kama soo haro in qof waliba uu dareemo inuu kan kale la mid yahay, kama soo haro inay tusaale wanaagsan leeyihiin. taliyaha iyo saraakiishana waxaa laga rabaa inay tusaalahaas noqdaan. annaga madaxdaana waxaana la ka rabaa inaan ka shaqeyno xoogga saarno habeen iyo maalin in agabkiinu iyo xuquuqdiinu idin dhameystiran tahay. dowladda Soomaaliya ayaa xoog iyo waqti badan gelisay dib u habeynta ciidanka qalabka sida si loo ogaado tirada ciidanka iyo agabkooda. taasina waxa ay keentay in guulo waaweyn ay ka gaaraan ciidankeenu la dagaalanka argagixisada sida xoreynta iyo badbaadinta ammaanka ummadda Soomaaliyeed. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.